America has got one of the best presidents ever. madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa sheegay inuu jecel yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sababtuna waxa uu ku sheegay inuu yahay nin aftahana isla markaasina runta u sheegay Afrikaanka. Yoweri Museveni oo hadal ka jeediyay kalfadhiga baarlamaanka bariga Afrika uu ku lahaa wadanka Uganda ayaa yidhi America waxa yeeshay madaxweynihii ugu wanaagsanaa abid waan jecelahay Donald Trump sababtoo ah Afrikaanka runta ayuu u sheegay Afrikaanku waa inay dhibaatooyinkooda xalistaan ayaa uu yiri Yoweri Museveni oo amaanaya madaxweyne Trump. Mr. Trump, I love Trump. I love Trump because he tells Africans, frankly, I don't know whether he's misquoted or whatever, the Africans need to solve their problems. They need to be strong. Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu eedeeyay in dalalka Afrika uu ku tilmaamay gudaafad isla markaasina aanay habooneen in dad ka socda wadamadaasi ay Mareykanka soo galaan balse madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waa uu beeniyay inuu isticmaalay eray bixinta nacaybka ah dalal badan oo Afrikaan ayaa sidoo kale waxay dhaleeceeyeen hadallada ka soo yeeray Trump.